waxaan digniin u dirayaa dadka daykeerada ka shaqeeya iyo dadka daykeerada iska leh ee Soomaalida ah. Soomaaliyey haddii aad daykeer leedahay ama daykeer aad ka shaqeyso, muuqaalka muhiim ayuu ku yahay inaad daawato oo aad dhamaysato. waxaa soo baxay koox burburin raba daykeerada Soomaalida ay leeyihiin. Not only daykeerada, home health careada xataa way u soo socdaan, laakiin hadda waxay faro kulul ku hayaan daykeerada Soomaalida. tiimkan kaamirooyin ayay wataan, waxaana ay diyaar u yihiin in ay burburiyaan daykeerada Soomaalida. shakhsigan haddaad u jeedid waxa uu tegayaa daykeer Soomaali ay leedahay oo Minnesota ku yaala. waxa uu wataa kaamiradiisa, maamo ayaa si qaldan albaabka uga furaysa, kadibna waxa uu weydiinayaa caruurtii halkan lagu hayay aaway. 2.6 milyan oo dollar ayaad qaadataan, caruurtiina ma aragno, ee caruurtii keena, tuuga ayaad tihiin, lacagta ayaad dhacaysaan ayuu leeyahay. Children here in your child care? Which child care, ma'am, is a lot of Minnesota Child Care right here. It's from the state of Minnesota's website. We're just wondering where the children are. Where the children are? Yeah, where are the children? It says you have 102 children here, and you got $2.66 million this year in funding, and $2.5 million last year. We're just wondering where the kids are. And who are you? My name's Nick Shirley. Nick Shirley. And where you? Which department? That is harassment. Oh, we are from ourselves. Yeah. Hello, we'd like to ask where the money's going. isla ninkii ayaa haddana wuxuu tegayaa daykeer kale. waxa uu leeyahay daykeerkan daaqada ma lahan, hal albaab bes ayuu leeyahay, bannaankiisana wax baabuura ma yaalaan, lacag fara badan ayayna qaataan, waa ay dhacaan, waxayna dhacayaan lacagta taxpayerka ayuu leeyahay, canshuur bixiyaasha. Here in Minnesota, massive fraud is taking place within the government and the Somali population. Here, this building alone, Quality Learning Center, is a daycare, yet they spelled learning wrong and they said leering. This daycare alone in 2025 has received $1.9 million from the government. And the strange things about these childcare centers is there's no one here right now. It's midday on a weekday. If you were to try to go inside, it's completely closed and the windows are all blacked out. No one's working. Midday, children should be in here, and this place is licensed for 99 children, and this is the outside. There's no windows, no nothing. And like I said, they literally spelt the word wrong on their sign. This is open and blatant fraud taking place here inside of Minnesota. The government is complicit with this, and this is just one of the hundreds of child daycare centers here inside of Minneapolis being ran by the Somali population. muuqaalkanna waa islaan kale oo markaasi joogta daykeer kale oo Soomaali ay leeyihiin. waxa ay leedahay daykeerkan waa uu xiran yahay, intaas caruura ayayna hayaan, intaasi oo lacag ah ayayna qaataan, haddana daykeerka waa uu xiran yahay, wax ciyaal oo laga maqli karo gudaha ma jiro, wax joogana ma jiraan ayay leeyihiin. Massive fraud in the state of Minnesota, especially in Minneapolis. This daycare right here, run by Somalians, has taken in from the Minnesota government $1.1 million. This daycare says it can hold up to 40 children. I went up to the door. The door is locked, and as you can see, the windows are blacked out. I can't hear any children inside this daycare. It's midday right now. You'd think there'd be children in there playing, being taught, but no one is in there. This daycare, within 2 years, has taken in over $2 million. haddaba dadka iskale daykeerada maxaa la gudboon? waxaan kugula talinayaa number 1 in dad security aan la haayar garaysto. number 2 in albaabka aan laga furin qof caruurtiisa halkaasi ay joogin. number 3 in aysan la hadlin qofkii u imaada, kaamira ha wato ama yuusan wadanin. in booliiska loogu waco qofka albaabka daykeerka soo istaaga, waayo daykeerada looma ogolo in qof kasta iska yimaada, xitaa dadka ka shaqeeya waad ogtihiin waxa ay soo maraan fingerprint iyo background check. in si taxadir leh loola macaamilo qofka meesha yimaada oo la ogaado qofka uu yahay. in daykeerka uu mar walba uu xirnaado oo albaabkiisa aan la furin. haddaba waa lagugu maqan yahay, gaaladii aday kugu maqan yihiin, mega aday kugu maqan tahay,
burburintaadii ayaa lagu maqan yahay in xabsi lagu dhigo ayaa la doonayaa haddaba allah subxaana wa tacaala ayaa ku badbaadin kara laakiin badbaadada haatan gacantaadii ayay ku jirtaa wax ka bedel habka daykeerkaagii u shaqeeyo waad aragtaan duulaan weyn ayaa la idinku hayaa waad aragtaan burburin ayaa la idinla rabaa waad aragtaan xabsi in la idinku guro ayaa la doonayaa waad aragtaan in soomaalida la cabsi geliyo ayaa la doonayaa laakiin ha ka yeelina habka aad u dhaqmaysaan bedela oo waxaad beddeshaan dhaqankii dhaykeerada aad ku wadeen albaabada dhaykeeradana ha xirnaadaan cidna yaa loo furin dad sakuurid ah oo dhaykeerada waardiyana ha la keeno albaabka marka la soo garaaco qofka soo garaacaya waa in la hubsadaa cidduu yahayna la ogaadaa albaabka ayaa la iska furin haddii kale balaayo ayaa qoorta la galaysaa haddii kale balaayo ayaad albaabka ka furaysaa digniinta waan idin soo gaarsiiyey digniinta waan idinla wadaagay qaadashadeediina idinkaa iska leh anuu waxaan lahaa soo gaarsiinta iyo soo bandhigidda qaadashadeedina idinkaa iska leh wabilaahi towfiiq muuqaalkan asxaab badan la wadaag si markaasi soomaalida ay uga digtoonaadaan gaalada iyo waxa ay maleegayaan waa mahadsan tahay